marka hore aan ku bilaabo magacayga waa Cumar Yuusuf Cawaale waxaan ahay qof Soomaali ah kuna faraxsan at the same time inaan ahay qof Soomaali because hadda adduunka waqtiga la joogo waxaan ugu noolyahay waqti qof kasta oo leeyahay wax la dhaho nationality si ku faano wadanka ka yimaado runtii marka laga hadlo waxaan rabaa inaan la sheekareeyo dadka Soomaalida mise dhalinyarada aniga ila midka ah oo helin jaaniska anaga mise aniga helay mise dadka kala banaanka wadanka ku nool waxaan rabaa inaan weydiiyo horta su'aasha taagan waxay tahay markii laga soo tago waxyaalahan kale war anigu maxaan u ahay Soomaali adiga maxaa u tahay Soomaali su'aasha jawaabteedu waxay tahay waa wax heybad oo Ilaahay siiyay waa wax heybad oo qof kasta bini aadan helay ma aha qofka shakhsiga wuxuu doortay ma aha waxa aniga doortay ma aha waxa adiga dooratay laakiin waa wax Ilaahay xaggiis kugu dooray ka dhiga Soomaali loo baahan yahay inaad ku faraxsanaato Soomaali warqofka Soomaaliga uma ahan Soomaali inuu qaxootimo uma ahan qof Soomaali in banaanka lagu leeyahay uma ahan Soomaali in adduunka nolol bixiyo dad adduunka ugu xun in ma ahan la dhaho waxaa tiin dad the most corrupted people in the world su'aashu waxay tahay qofka waxaa la joogaa hadda adduunka there's a level waxa la taagan yahay la dhaho wax la dhaho Somalization means maxaa waaye wax kastoo la burburiyo the extreme kasta meesha qofka gaaro waxaa la dhaho Somalization miyaysan ahayn jiilka hadda jooga mise kuwa soo socda miyaysan mustaqbal mise baal ceeb in u geli doono waxa jirta waxay tahay qofka Soomaaliga maanta hadii la dhaho war like markii la dhaho adiga Soomaali maxaa u tahay war qofka Soomaaliga ani ahaanteeda ahaan Soomaali waxaan ahay qof Soomaaliyeed ku faraxsan dadka Soomaali jooga waxa ku dhacay waxay tahay mise guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed mise guud ahaan dadka Soomaaliyeed waxa ku dhacay waxay ahayd wax la dhaho post colonialism waxa ku dhacay in wadankooda loo xumeeyo banaanka mise Yurubta laga dhigo mise adduunka kale loo dhigo inay ka fiican tahay war laakiin hadii sida factiga ah wadanka Soomaaliya hadii la hagaajiyo outcome ka soo bixi karo waxaan aaminsanahay shakhsiyan inay ka fiicnaan karto meesha adduunka ay war maxaa ku diiday in aad adiga noqotid wadanka adduunka u fiican waxay ku xirantahay waxay tahay hamiga iyo meesha aad isgaarsiisay war maanta hadaa dhahay waxaan rabaa inaan dayax tago yes go ahead and don't say if I miss don't put miss hagelinbo inaa weynays yes you will go there and you will land marka waxa u baahan dhalinyarada aniga la mid ah waxaan rabaa inaan fiinkay la share gareeyo they have to change mentality inaa waxaan rabaa waxay tahay inaa aimkeena high ka dhigo war halkee rabnaa inaan gaaro 20 sano soo socdo halkee rabnaa inaan gaaro marka waxaa ka imaanay wadan look around us waxa ku yaala wadanka Soomaaliya very strategic location waxaa leenahay 7.5 million of gala wadankeena jooga that means like half of the population midda kale Soomaaliya waxay ku tahay very strategic location one of the biggest world trade economic less badda Soomaaliya markii laga soo tago xataa waxaa la rabaa qofka Soomaaliga dhasha kan yar dhasha inuu ku dhasho milyaneer laakiin jaaniskaas ma helin karo laakiin waxa hadda waxay tahay maanta aniga kula hadlayo ma awoodo inaan dadna isku keeno ma awoodo maanta inaan wadanka tago oo wax bedelo laakiin waxa awooda inaan hadlo which is the most powerful wa kan ugu awooda badan mustaqbalkana insha Allah dad anaka naga mid ah inaan wixii qaladka shalay dhacay inaan saxno diri dadka anaka naga dambeysada ugu tagin wixii anaka noo qabtay so that's it markii la fiiriyo qofka Soomaaliga cunuga yarka Soomaaliga oo wax ku barnaa Soomaaliya mise kan Japan jooga teknolojiyada adag isticmaali sameeynaayo waxa laga yaabaa kan Soomaali jooga inuu ka fikir fiican yahay inuu laga yaabo in maskaxdiisa is hal abuurkiisa ka fiican yahay kan Japan jooga laakiin fursad helaysa marka because Soomaalida badana waxa tahay Soomaaliga gaari kartid ma Soomaalinimadeeda ma qofka celinayso inuu adduunka horumarka gaaro waa maya marka waxa la rabo waxay tahay Soomaali waxa ku loonahay ma naqaana awoodeen maxay tahay awoodeen war adiga maxay tahay awoodeeda maanta waxa laga yaabaa waxa awoodeeda in qofka kale ka daciifsanahay meesha aniga ka daciifsanahay waxa laga yaabaa qof kasta in awoodeeda laakiin markii la isku imaado waxa laga yaabaa ummad bulsho oo wada awood leh mise meel dheer hiigsanayso aan noqono wadanka adduunka ugu fiican why not weligeed ma ku fikiro way uma qoween maxay tahay maxay hortaan maxay tahay caqabad ma hortaan wax nagu hortaan waxay tahay in aan ka ilaahayna qoom ma bedelo unless they want to change themselves illa ayaka horta naga soo go'do in isbedelo wax kastana waxa bilaabo qof shakhsi fikirka nagu sheegay waa furahaas albaabkaas kun qof u gali kara laakiin wuxuu ku bilaabo waxay tahay hal fikir yar iyo hal idea bas marka waxa rabaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo aniga la mid ah let's share our feelings and thank you so much